Bismillahirrahmanirrahim. Waa Somali News oo aad ka barateen wax waliba aynu idiin soo gudbino, ha ahaadaan kuwa caalami ah, ha ahaadaan kuwa gaar ah. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa 4 calaamadood oo tusinaya inaad u baahan tahay hurdo iyo nasasho badan. Hurdada iyo in qofku uu qaato qadar nasasho ah oo ku filan waxa ay keentaa deganaansho xagga ruuxda iyo jidhkuba ah oo lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha. Hurdada waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee jirka aadanuhu u baahan yahay ee aanu la'aanteed samayn karin wax dhaqdhaqaaq ah, hawl maalmeedkiisana uu habsami galayo. Hurdo yaraantu waxa ay keentaa dhibaatooyin xagga jidhka iyo caafimaadka ah, jidh ahaan iyo nafsi ahaanba. Haddaba, hurdada habeenkii waxa ay ka faa'iido badan tahay tan maalinimo, waxa ayna eegaynaa 4 calaamadood oo lagu dareemo in hurdo yari ama nasasho la'aan ay ku hayso. Number 1, gaajo aad dareento. Haddii aad dareento gaajo oo aad u xeel dheer, waxa ay tilmaamaysaa in hurdo baahi qabad ay ku hayso. Sidoo kale, cidhiidhi xagga nafsiga ah. Sidoo kale, xusuusta ama xusuus la'aan qofka haleesha. Haddii qofku wax waliba uu iloobo, hawl uu qaban rabay iyo wax uu qaadi rabay intaba haddii qofku hilmaamo, waxa ay jirku ka tarjumaysaa inuu u baahan yahay hurdo ku filan. Firfircooni oo qofka ku yaraata. Haddii firfircoonida iyo weliba nashaadka jirkaaga uu yaraado, waxa ay ka tarjumaysaa inaad u baahan tahay hurdo. Haddii laga waayo dareen firfircoon iyo nashaad xagga jidhka iyo maskaxda ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad u baahan tahay hurdo. Ogsoonow, daalka iyo caajiska badani waa astaan muujinaysa in aanu qofku ku habboonayn xaaladdiisa.